dhammaan kasoo qaybgalayaasha munaasabadda waan salaamayaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. golaha wasiirada, dhammaan wufuudda inooga yimid dalalkan walaalaha nahay ee Ethiopia iyo Djibouti, ganacsatada, meeyarka caasimadda, hay'adaha dowladda, wakiilada dalalka ama safaaradaha Somaliland iyo diblomaasiyiinta, hay'adaha caalamiga ah iyo qaramada midoobay, xildhibaanada labada aqal ee Somaliland, guddoomiyaasha xisbiyada, dhammaantiin waan salaamayaa, waan soo dhaweynayaa. waxaan halkan ka qirayaa inuu Cabdikariim uu yahay geesi dadku xoolahay u jecel yihiin. waa lagu kaftama waxaa la yidhaahdaa hebel waa nin wanaagsan oo Soomaalidu way ka maamaado waxay tii lehe jeclaa idin dhex marin. marka Hargeysa in hudheelka inta leeg uu dhiso oo maalgeliyo isagoon ogeyn waxa uu geliyey inay dhaqso uga soo noqonayaan. laakiin waxaas leeyahay wax kaloo ka weyn buu markaa niyadda ku hayo inay imanayaan. marka maalgashiga intaa leeg uu geliyey aada iyo aad baan runtii ugu bogaadinayaa, ugu mahadnaqayaa. innagana faan bay noo tahay, shacbiga Somalilandna faan bay u tahay, Hargeysana faan bay u tahay, Soomaali oo dhanna faan bay u tahay. marka waxaas leeyahay ha soo wada ducayso Soomaalidu. maanta hadduu inoo yimaado ra-iisul wasaaraha Ethiopia ama madaxweynaha Imaaraadku ama madaxweynaha Maraykanku meel ku soo dejinaa baynu haynaa. waxaan runtii Somaliland hudheelkani iyo dhammaan maalgashiguba uu yahay soo jiidashada ugu weyn ee u soo jiidanaya maalgashigu waxa uu ah nabad furaha. marka nabadda waa inaynu ilaashano si guud, taasaana soo shiidaysa in dadku halkan maalgashadaan ama Somaliland maalgashadaan. maalgashigu wuxuu soo eegayaa mid kastaba mid uu soo dhaweynayaa. dunidu markay soo eegaan dekeda berbera, qof kastoo taga uu kusoo dhiiranaya Somaliland. markuu tago madaarka berbera, maalgashado kasta ama qof kastoo dowlad ka socda ama company ka socda wuxuuna yidhahaa dekedana soo tusa ama madaarka berbera. waa sahan, wuxuu sahan u yahay meel xoolihiisa gelin karo. hadday dowlad tahayna meel ay kusoo dhiiran karto, xidhiidhkeenu ay kusoo dhiiran karto. marka maalgashi kasta Somaliland way soo dhaweyneysaa, qof kastoo maalgashanaya Somaliland. hadday dowlad tahay, hadday qof tahay, hadduu Soomaali yahay, hadduu Somaliland yahay, hadduu dunida waddanku doono yahay, waa soo dhaweyneynaa. waddanku albaabadiisa waynu u furay maalgashiga. waxaanu dhagax dhignay meelihii warshadaha laga sameynayey. berbera waa madax dhignay dhul bilaasha oo Somaliland ugu tala gashay qof kasta oo warshad dhisanaya inuu maalgashado. waxaa la dhagax dhigay Hargeysa, qof kasta oo warshad ka dhisanaya dhulkii waanu haynaa. ganacsatadeenuna dee beriisku iyo soo dejinne warshadaha dhistaan. haddii kale warshadahana waxaa laga yaabaa cid kale ka buuxiso ajnabiya joogto ay dhul waayaan ama dhul qaaliya iibsadaan ha joogto.
burcana waa soo dhex dhignay soonkii bilaashka ahaa dhul bilaash oo warshadaha loogu talagalay waan soo dhaweynaynaa berbera waa dadku markay tagaan free zone-ka aada bay runtii ugu soo dhiiranayaan albaabada ganacsiga waynu hodheelkana wax badan bu ka tari doonaa in dadku soo dhiirado marka cabdikariimna waynu u ducaynaynaa in ilaahay u barakeeyo hodheelka waxaana kaga tegayaa waxaa inaga baxay shaksi inagu weyn dhammaanteen professor maxamed gees ilaahay ha u naxariisto wuxuu ahaa nin taariikh weyn ku leh dalka oo siyaabo badanna ugu adeegay ummadda hadduu macallin ahaa hadduu siyaasi ahaa hadduu nabadda ka shaqaynayey hadduu diblomaasi ahaa hadduu arrimaha dibadda joogay hadduu maaliyadda joogay hadduu qorsheynta joogay wuxuu ahaa qoraa taariikhda somaliland wax badan ka qoray waynu jeclayn in halkan la keeno oo lagu aaso laakiin qoyskiisii waxay doorteen in maraykan lagu aaso marka waxaynu u tukan doonaa salaat lgaayb xus iyo baroordiiqna waynu u samayn doonaa insha allahu haddii ilaahay yidhaahdo ilaahay ha u naxariisto isna culimada ducayn doonta anigu mar labaad qof kastoo kasoo qayb galay munaasabadda gaar ahaan dadka saaxiibadeena ee dalalka kale uga yimi si ay uga qayb galaan munaasabadda aada iyo aad baan ugu mahadnaqayaa mar labaad waxaan umahadnaqayaa dhammaan diblomaasiyiinta iyo ergada ka socota beesha caalamka ee nala joogta asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu